Iran ayaa dalalka qaliijka ku eedeynaysa beegsiga kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka ayaana u muuqda markan in shaqaalihiisa iyo waliba ciidamadiisu kala baxaya Sacuudiga xilli ay markaasi socdaan dagaalka bariga dhexe. Dowladda Mareykanka ayaa amar ku bixinaysa in diblomaasiyiinta muhiimka ah ay ka baxaan dalalka Sacuudi Carabiya. Go'aankan ayaana imaanaya iyadoo markaasi ay sii kordhayaan xiisadaha amniga ee gobolka bariga dhexe gaar ahaan dagaalka ee u dhexeeya Iran iyo waliba sidoo kale Israel iyo Mareykanka. Amarkan wuxuu markaasi uu ka dhigan yahay in shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee aan markaasi shaqooyinka degdega ahayn in ay si kumeel gaar ah ugu baxaan Sacuudi Carabiya si markaasi loo yareeyo qataraha amni ee markaasi ka dhalan kara xiisada inay sii korodho. Iyadoo dhinaca kale ee Turkiga gantaal uu ku soo tooray Israel ay markaasi qabteen uguna digeen in dowladaha muslimka ee waqtigan ee markaasi gardarada ay ka joojiyaan Mareykanka iyo waliba sidoo kale Israel. Waxaana muuqata in dagaalka bariga dhexe markan uu u muuqdo in cirka isku sii shareeri doono muddooyinka ama saacadaha soo aadanba. Dhinaca kale dalalka Mareykanka iyo waliba Israel Iran ayaana markan sheegay in dagaalka intuu socday ay ku dhinteen 1255 qof oo ay markaasi ku dhinteen weerarada ay fuliyeen dowladda Mareykanka iyo waliba sidoo kale Israel kuwaasi oo badankoodu ay yihiin shacab reeyda iyo waliba dad maata ah oo aan waxba galabsanina. Dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Iran Ali Jafrein ayaa warbaahinta Jazeera u sheegay in duqeymaha cirka ay waxyeelo ay ka soo gaarsiiyeen 10 xarumood oo caafimaad ah xaaladda Iran. Tehran Maarso 8 2026 qiiq aad u ba'an ayaa cirka isku qabsaday ayuri taasi oo kadib duqeymo habeenkii lagu garaacay bakhaaro shidaal ah. Mareykanka iyo waliba Israel ayaana sii waday weerarada wadajirka ahaa ay markaasi ku bilaabeen Iran 28 Febraayo. Iran ayaana dhankeeda ugu jawaabtay iyadoo markaasi gantaalada iyo waliba diyaarado aan duuliye lahayn oo droneska ay ku weerartay Israel iyo waliba xulafada Mareykanka ee gobolka. Khasaaraha ugu baaxadda leh dagaalka bariga dhexe oo sabay ayaana markan lagu tilmaamay sida uu sheegay Ali Jafrein oo ah wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee Iran. Tirada guud ee dadka ku dhintay halka uu si weyn u xusay 1250 qof ayaana lagu dilay oo ay markaasi ku jiraan 200 oo caruur ah iyo waliba 11 shaqaale caafimaad ah. Dadka dhintay da'dooda ayaana u dhaxaysa 8 ilaa iyo waliba 88 sano. In ka badan 12,000 oo qof ayaana markaasi ku dhaawacmay. Badankood waxa ay qabaan dhaawacyo iyo waliba burbur dhismayaal aad u xoogan ka dhashay dagaalka Israel iyo Mareykanka ay ku hayaan Iran. Waxyeelada xarumaha caafimaadka 29 xarumood caafimaad ayaana waxyeelo ka soo gaartay. 10 cisbitaal ayaana gebi ahaanba la xiray 52 xarumood caafimaad ah 18 goobood oo degdeg ah iyo waliba sidoo kale 15 ambalaas ayaana la burburiyay waxyeelana ka soo gaartay. Khasaaraha caafimaadka wasiirka ayaana sidoo kale ka digay khataro caafimaad ah oo ka dhalan karta qiiqa sunta kadib markii weeraro lagu qaaday goobaha shidaalka Iran habeenkii Sabtidii. Magaalada oo dhan waxay markaasi ku jirtay mugdi ilaa iyo waliba galabtii sida uu sheegay. Xaaladda dagaalka bariga dhexe ayaa u muuqda markan in kala guur u muuqdo taasi oo lagu tilmaamayo gebi ahaanba Mareykanka awood sheegashadiisa ka dhanka ah iyo burburinta ee sida weyn markan ugu golleeyahay in gebi ahaanba uu ka saaro Iran taasi oo lagu xusay markan in safaaradihiisa ugu waaweyn kala baxayo shaqaalihiisa ciidanka si markaasi ugu yaraato qataraha ugu waaweyn ka soo gaari kara xaaladda bariga dhexe.